Abaare lixdii subaxnimo saaka ayaa si rasmi ah uga bilaabatay guud ahaanba gobolka Saaxil codbixinta doorashooyinka isku sidkan ee golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo sidoo kale golaha wakiilada ee gobolka Saaxil. dadweynaha gobolka Saaxil ayaa saaka taagnaa safaf aad u dhaadheer taasoo ay doonayeen si ay codka u siiyaan musharaxa ay taageersan yihiin. gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socota xukuumadda Soomaaliland iyo wufuud caalamiya oo koob joogayaal ka ah doorashadu sida u dhacayso ayaa ka soo qayb galay. gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi waan kula kulanay goortii uu ka dhiibanayay codkiisa ayaa halkaasi ka hadlay waxaanu ka waramayay guud ahaanba si nabadgelyo uga bilaabantay gobolka Saaxil doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada ee gobolka Saaxil. maanta way ku beegan tahay 31 May waa maalintii loo dareeray codbixinta labada gole ee golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ee siskan shalay toole si nabadgelyo ah oo wanaagsan ay dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka iyo intii meelihii goobi laga codeynayay ku wada gaadhay 240 goobood si fiican bay baabuurtii sanaaduuqdiiba u gaadheen shaqaaliina u hawlgaleen. saaka saacadda nimanka aynu taaganahay waxay ku beegan tahay saacaddii ay codeynta la bilaabi lahaa iminkaan halkan ka bilaabaysaa aniga lafteedu halkan aan ka codeynaya waxa weeye si nabadgelyo leh oo wanaagsan ayay goobi wada gaadheen labada degmo doorasho ee Sheekh iyo Berberaba si fiican bay uga bilaabantay xaaladda gobolka dhammaan waa nabadgelyo. dadweynahan oo saaka arooriyadii hore taagnaa safaf aad u dhaadheer ayaa ilaa habeennimadii xalay ahaa ku waabariistay waxaana guud ahaanba gobolka Saaxil uga dhacday doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada si nabadgelyo. maxamed cali ruux telefishinka caalamka Gobanimo TV magaalada Berbera.